degmada xarfe ee gobolka mudugna waxaa lagu doortay xildhibaan cusub oo ay dooratay mid kamid ah beelaha degmadaasi xarfo sida faainta warkan oo inoogu soo dirayo guleed jaamac maxamed oo halka inoogu soo waramay mid kamid ah beelaha degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa doortay xildhibaan cusub iyagoona u soo bandhigay bulshada ku dhaqan degmada xarfo si ay ula qaataan una taageeraan xafladda loo dhigay xildhibaanka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada xarfo ururada dhalinyarada ururada haweenka nabadoono iyo aqoon-yahanno waxaa xafladdaas ka hadlay dadweyne aad u badan oo dhammaantood soo dhaweeyay xildhibaankan cusub ay beeshu dooratay xildhibaankan ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa xildhibaanada cusub ee dowladda Puntland ee xilligaas soo socda waxaana wareen halkaas ka hadlay waxgaradka beesha dooratay xildhibaanka iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladdaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa weeyaan hore uma dhici jirin in macnaha beeshu markay ay soo xulato ay u soo bandhigto deegaan reer xarfo oo aan ka mid nahay beelaha deegaan inaanu mowqifka iyo ra'yiga iskaga mid nahay beeshu way soo xulan anagu nuuraddiin waa soo xulan waxaan horkeennayna waxa weeye waa reer xarfo waxaan doonaynaa inay nala qaataan taageeraan ayaanu doonaynaa oo lagu dooranayo xildhibaanka waa salaamahayaa waana soo dhaweynaynaa raallina waanu ka nahay isagana waxaanu leenahay diintii dadka midafacadaha ka dhigo saasaan horta nuuraddiin dooranay oo u soo dhaweynay waana u rajaynaynaa waxaad qaadataa macallin inaad macallin ka sii ahaatid degmada xarfo xildhibaanna ay kaaga dhigteen inaad xuquuqdooda u keentid weliba bahda waxbarashada aad wax badan kusoo siyaadin waa la soo dhaweeyey degmadiina waxay u garatay in loo doorto baarlamaanka loo diro marka hawshii uu ku jiray ilaahay faray iyo haddana sii laba jibaaraya jaalidaha dibadda ah oo reer xarfo iyo reer Puntland dhammaan Soomaaliya oo dhanba anu gudoomiyaha ka ay jaalada Soomaalida ee Zambia gudoomiyaha waxaan ka ahay xiriirka guud ee ururada Soomaaliyeed ee Southern Africa ama koonfurta Afrika qaaradda geeska ardayda degan Soomaalida sagaal dal weeye sagaalka dal waa gaarsiinayna waana idala shaqeynaynaa xagga waxbarashada horumarinta caafimaadka waxaan ka garanayaa taas ama tusaale cad u ah ama muujin karaba sida hadda ayaga oo aan kala gaar ahayn ama aan kala hayb ahayn ay u taagan yihiin inay taageero buuxda ay codkooda igu siiyaan oo yiraahdaan waa ku garab taaganahay waanu kula soconaa intaba inay ugu yiraahdaan hadday ahaan lahayd ururadoodii bulshada hadday ahaan lahayd nabadoonnadii hadday ahaan lahayd culimo diinkii hadday ahaan lahayd cuqaashii kulli inay garab taagan yihiin taageeradaasna ay muujiyaan waxaan idin leeyahay waa idinka qabaa taageerada waan idinkaga mahadcelinayaa sida kalsoonida leh ee kal iyo laabtaa aad ugu taageerdeen guleed jaamac maxamed TV-ga caalamiga ee Somali Channel degmada xarfe ee gobolka mudug degmada xarfe ee gobolka mudugna waxaa lagu doortay xildhibaan cusub oo ay dooratay mid kamid ah beelaha degmadaasi xarfo sida faainta warkan oo inoogu soo dirayo guleed jaamac maxamed oo halka inoogu soo waramay mid kamid ah beelaha degmada xarfo ee gobolka mudug ayaa doortay xildhibaan cusub iyagoona u soo bandhigay bulshada ku dhaqan degmada xarfo si ay ula qaataan una taageeraan xafladda loo dhigay xildhibaanka cusub ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada xarfo ururada dhalinyarada ururada haweenka nabadoono iyo aqoon-yahanno waxaa xafladdaas ka hadlay dadweyne aad u badan oo dhammaantood soo dhaweeyay xildhibaankan cusub ay beeshu dooratay xildhibaankan ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa xildhibaanada cusub ee dowladda Puntland ee xilligaas soo socda waxaana wareen halkaas ka hadlay waxgaradka beesha dooratay xildhibaanka iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladdaasi waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa weeyaan hore uma dhici jirin in macnaha beeshu markay ay soo xulato ay u soo bandhigto deegaan reer xarfo oo aan ka mid nahay beelaha deegaan inaanu mowqifka iyo ra'yiga iskaga mid nahay beeshu way soo xulan anagu nuuraddiin waa soo xulan waxaan horkeennayna waxa